siyaasi Jamaal Junuuni oo ka mid ah dhalinyarada xisbiga mucaaradka ee wadani oo si gaar ah ula hadlayay telefishinka Som News TV ayaa ka hadlay xaaladda ay ku sugan tahay magaalada Burco waxa uuna maayirka magaalada Burco ka difaacay eedeena loo soo jeedinayay maalmihii u dambeeyay waana kan Jamaal oo ka hadlaya arrinkaasi waxaan ka salaamayaa saxaafadda qaaliga Som News TV waxaan doonayaa maanta in halkan kaga hadlo saddex qodob waa dawladda hoose ee gobolka Togdheer qodobna waa cashuurta iyo waxqabadka soo gala Burco qodobna waa maayirka oo dhaliilo fara badan bulshadii ay hawada u marinayso qodob markaan ku horeeyo qodobka dawladda hoose maanta Burco male beero male ila dhaqaale oo kale waaweyn male meelo waaweyn oo wax ka soo gali karaan oo ama wax laga gurto oo dakhli si toos ah u soo gala male Burco waxay leedahay wax ganacsi ah xoolaha nool ay caan ku tahay xoolihii noolaa maanta kastam si sax ah u shaqeeya oo Burco cashuurteeda halka marto ama halka laga yeedo garanayna wax laga cashuuro xoolaha waxa weeyaan in horta cashuurtii kastamada la furo oo gobolka Togdheer xoolaha laga cashuuro 2 milyan oo neef in ka badan ayaa laga raraa Somaliland milyan iyo barkamid wax laga raraa gobolka Togdheer iyo ereeyadiisa cashuurta yaana waxaan leenahay si kale ama dalal kale ayaa development looma qaybiyay shan meelood meel bay heshaa dalalkana wixii ku harumar ku socda taasi wata waxaan codsanaynaa in cashuurta sideedii iyo kastamada inay halkan ka hawlgalaan oo ka baxaan qodobka labaad dawladda hoose waxa ay wax ku soo gala ee ay ku shaqeystaa waa cashuurta maanta Burco waxa wax laga qaadaa maadaama la helo dhaqaale waaweyn oo soo gala waxa laga qaadaa waa islaamaha gidaarada fadhiya ee suuqyada iska fadhiya ama ragga meelaha kariyoonada iyo waxyaabaha yar si wax la halmaalo kale ee 2003 lixda bilood ee hore waxa ma soo dhaafto waxa soo gala waxa weeyaan inay noqoto liisamada iyo waxyaabaha soo raaca wax noocaas lixda bilood hore ma soo dhaafto lixda bilood ku xiga minus ayaa daba yaalo halkeedii bay ku noqotaa sanadku markuu dhamaado deyn baa lagu yeeshaa 2 milyan lacag ka badan ayay noqotaa taas waxay ka turjumaysaa inay dadkii halkan lahaa ama u dhashay ay gobollo kale dhisayaan oo ama Hargeysa kale Berbero kale dadkii ganacsatada iska guuran halkan taasi wata oo yandi dawladda hoose loogu dudan horta wax qabad iyo lacag tasaddexaadan doonina ka hadlo waxa weeyaan maayirka kuwa qolo ku difaacaya iyo kuwa aan qoloba aan ku difaacin maayirku waa maayir qaran uu ka weyn reer in maanta qofan weligiiba arag baa doonayno maayirka wax ka sheego bil aadankana in la iska maago waxaan aad yara qiimeyso marka waqtiga lagu jiro iyo xaaladda dalka Soomaaliya waxa ku mahmaada carab loo cusub looma tilmaamo maayirku maanta wuu arkaa dhibaatada maanta magaalada ka jirta xaafadaha qaar baan wadooyin balahayn xaafadan imanka hodan qayle gaha ku taala wadooyin bamale wadeedii inta sarfin laga saaray baa sidii lagu daayo boorkiyo dhooqada wadadan xarwada waadiga arkay iyadoo ay saatahay suuqyada waadiga arkay meelaha halboolayaasha waxa way kookooyin oranayna maayirku muxuu lacag u keen waydi shacabka laga doonaya inay ganacsadeeda iyo mas'uuliyiinteeda inay gacmaha isqabsadaan magaaladooda ay dhistaan waan shacabka Soomaaliland ugu baaqaya inay hadallada xanafta leh ay ka waantoobaan oo ka fogaadaan maayirka iyo xildhibaano kale muran ayaa indhaweyd u dhaxayay iyadoo la bambooninayo baraha bulshada hadallaan wanaagsan la isu marinayo oo nacabkuna aad mudeen ku yara dalalka kale ama meelaha kale ay ku yara diirsanayaan
somalilan cadow fara badan ayay leedahay mas-uuliyiin baa tihiin kuwii maanta iyaga 2 bilood dee u qaadan lahaa wadahadalkooda iyo murankooda dee ma tiidin inaad tanaasul badan samaysaan waayo waxyaabo badan ayaa la laqaa mar haddaad maamul tahay intaasaan iyagana kula tarin lahaa. Abdiwaaxid Beeldaaje, telefishinka Som News, magaalada Burco. Hello. Salaamu calaykum. Soo xabiibi aadan maaha. Waalaikum salaam walaal waanigii. Waxaa kula hadlaya maamulka shirkadda. Haye. Walaal waxaad ka mid noqotay macaamiisha bisha sida ugu fiican u isticmaalay adeegayga. Waxaanad ku guuleystay abaalmarin dhan $600. Abaalmarin. Waa hagaag sideen u heli karaa abaalmarinta? Xaguu si ku yaala xafiiskiinu? Waa caadi walaal ma baahnina inuu timaadid soo nambarkaaga saad ma laha. Haa walaal nambarkayga ayaan ku isticmaalaa saad. Saa lacagta abaalmarinta kugu soo dhacdo moobilkaaga geli nambarkan. Haye walaal. waxaad gelisaa xidig 880 xidig 7000 xidig 600 fargees kadibna biinkaaga geli markuu kuu soo dhigo iyadoo si toos ah moobilkaaga kugu soo dhacaysa lacagtiya oo walaal sidan waa habkii lacag diridda aniga imika lacag diray waa sidee maya walaal lacagtaa sidan kugu soo dhacaysa aad ku guuleysatay haa wartug baad noo dhig moobilka ilaahay ummadda kaa qabtay shirkadda Telesom waxay ku leedahay ka feejignow cid kasta oo ku sameynaysa ballanqaadyo sida inaad ku guuleysanaysid abaalmarino lacageed iyagoo sheeganaya shirkado kaana codsanaya inaad lacag u dirtid ama ka codsanaya inaad geshid saadkaaga oo aad raacdid qaabka u lacag dirista macmiil moobilkaagu waa khasnadaada maaliyadeed ee fadlan ilaasho